أنا أفضل أسكري لو عاي بالهلا سواء إن كانت أنا هيستو مش أنا كجوكت عني جاي معنا أنا كرت وحمدي كرت أشياء كأود بديع وحي رجع أنا نتأسكرم كوجو عايا وكلية هاي أنا تاس أديك دالي وحاواي أيجينا كده لنا أمودا أيجا كعنانا ناي وحيدونا نكده هايان ماشي أمريكنا لها marka gacan uma qaadid gacan ma saarin hadee askarta imaado anu waxaan leeyahay waxaan gacan saar ma lahan waxaan dhahay ka soo bax qolka telefoon maanta dhan haysata hadalkayga ma maqlayso homework-geeda ma qorato maalin kasta macallimiinta homework schoolka ma keenin ay dhahayaan marka waa arkaynaa waxay dhahaan guys maxaa la dhahay dhibkaas meeshan ka jiro kuwi kalena waxaas ay arkayaan hadhow buuga inda lagaga dhufana hadii la rabo wixii la rabo lagu dhahayaa hooyada ay maxay iga galada hooyadii tahay lagu dhahay who cares marka dhibaatada sataagan qolkaas isku soo xiraysa qolka da isku soo xiran waxa ku leeyahay qolka anaga qolkeyga ana iska leh wuxuu yahay privacy of Somali privacy maxaa lagu dhahaa محل ده حد جود بهاي بسمانين قل كيجان كجرا أمان السي عندنا كاميرا بمنعوناي وحندونا سمانا قل كيجاسن كجرا أمان السي إنا لبي تمسن يجر محاوى حد جود أكو سمانين سقول كيس أو ما داقشت قل كيج أنا إسكالي قل كيج محاوقش هدا مالي كان سوها جاجيو حتى عن محل دركودي وحد واستخدم بالكلبحي أو قالوا قل كيج محاوقش qolkeyga ana iskale yaa amar ku siina qolkeyga gashid ilma yar ma ahay cunig shanjira ma ahay qof weyn ahay qolkeyga wax walba ay jiri karo waaya u gashaal buleey okay asxaabtu waxaan rajeynayaa gabadha inay soo dhageysateen shalay ilaa maanta dhan waa la murugeysnaay waxaan la ilaahay oolaad u toosi waa u duceeyahay saaka canjeerada marka Dubai ilaan waxaas dhan waxa lagu leeyahay waa fake bo ya ruwaayad jiloleen waaya lagu leeyahay walaalay hadii aad ruwaayad jilaysid meesha baa lagu soo qoraa wacyigelin ama ruwaayad gadaala laga sheegaa ma fiicna beent waxa waay xaraam maartay tan kale ummadana kugu xiran ina maartay ummadda aad ka murjiso ma wanaagsano run ahaantii waxa aad u soo gudbisay baraha bulshada waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo loo baahan yahay in laga hadlo la iska maartay wacyigeliyo laakiin ma ahan sida u soo gudbisay si qurux badan ma ahan abaayo mana ahan ina muuqaalkan maaragta aan kugu ataagayo muuqaal qurux badan waa gabadha tan kale aan waxaan ka shaki waxay ahayd xijaab gabar xijaaban oo waalidkeed saas ugu afcilinayso macquul ma ila ahayn haddana waxaan islahay waxa laga yaabaa ilmo waaye yar inay iskuulka wax been loogu soo sheegay aniba hooyo baan ahay ilmaan leeyahay ilaahay awlaadaha noo toosiyo dhamaanteen ilaahay baaraha nooga dhigo marka baay just waxaan ku leeyahay next time insha Allah be careful tan kale waxaan arkay leefaf badan oo maanta la soo furtay oo gabadhan loo soo furtay oo gabdha falaqeynayaan gabdha maalmahan TikTok waxa ka soo baxay yaa dhoosadii yarta waxay ku leeyahay waa falaqeynayna ma fahanteen marka boqolaala u soo safanayso waxay leeyahay waa ku falaqeynayna saana ku yeelayna inta kala dhacayna anyway maamo waxaan arka soo korto oo dhahayso ilmaheyga waxa waa garaaca sasi ma dhigi karaan may garaacdo maaragtay saan in la sameeyo waay waxa la dhahay horta lagu mahmaayo Soomaalidu ku mahmaada dooro qoor qabato biyo kuma cabto ma fahanteen adiga hadii lagu soo garaaci jiray xatee remember maxay kugu kaliftay inay damage ku geysato in ay ku geysato maaragtay maxaa la dhigi jiray cabsi oo maaragtay laga yaabo xatee salaada Ilaahay kugu lahaa ina cabsi waalidka ka cabsi dartiisa u dukatid which is very wrong so salaado kaleeto quraanka kaleeto waxa wanaagsan ilmaha ina jeclaysiisid Ilaahay dartiisa ay u sameeyaan waliga ha ku cabsi gelinin cunugaaga xoog ku duko inkastoo shariicada islaamka ay qabto cunuga in lagu garaaco waxaan u maleynaa 10 jir markuu yahay ma ahayd 15 maxay ahayd ina la ceeriyo oo gurigaaga laga ceeriyo hadoo taariikh salaadiya ilaahay horta taariikh salaad ilaahay ilmaha nooga ma dhigo laakiin waxa la dhahay wixii oo macnaha xeele ay ku weyso xoog kuma heshid oo waxa wanaagsan ilmahana ina maaragtay sida loo haayana soo baratid oo jaal care oo glassman iska free ah jiraan oo 3 bilood soconayo aad soo qaadatid adigana waa ku shaqeysan kartaa awlaadaada sida loo korsado sharciga wadanka ka jiro ayaad baran kartaa waxa kale oo jirto waxyaalo badan oo state-yada way kala duwan yihiin hadda state hadda kor waxaan ku daawaday naani gabar la dhaho ilmaha discipline ku sameeyso state America kamid ah oo loo ogol yahay ilmaha in gacanta maarta qalin looga dhifto kale ama laga dharbaaxo aabaha la leeyahay ma saana rabtaa ina ilmaha u canaanato
mase inaa meel gees istaag aad dhahdid oo waqti ku qaado andeen wuxuu dooranayaa aabba afrikaan oo waxa xasuustaa qalin inuu gacanta uga dhifto marka ani run ahaantii waxaan dhihi lahaa waalidiinta dulqaad hala muujiyo insha Allah